asalaamu calaykum. waan ku salaamay daawade meel walba aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. markaana qaybaha dhexe ee sheekada ayaan isla soo gaarnay. sheekadani waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed ciise marcadda, waxaana ka daawanaysaan barta youtube-ka ee marcadda show. la wadaag saaxiibadaada haddii aad muuqaalka ka heshayna fadlan like saar. mahadsanid. waxaana sheekadaani tarjumay saaxiibkay Antenno. qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa daariq ayaa waxaa looga yeedhay xafiiska guutada B6 halkaas ayuuna si degdeg ah uu ku aaday. daariq inta uu jidka uu ku jira waxaa loo sheegay oo uu ogaaday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka inuu soo booqan doono xafiiska taliyaha guutada B6 balse ma uusan ogeyn sababta booqashadaani ka dambeysa. daariq ayaa markii uu soo galay xafiiskii wuxuu eegay dhanka iyo taliyaha guutada B6 kaas oo ku mashquulsanaa sidii uu qarin lahaa cabsida iyo walwalka ka muuqatay wejigiisa. markaas ayaa inta daariq uu koob biyo ah oo meesha yaalay uu ka baday. taliyihii wuxuu weydiiyey su-aal ahayd, wax miyaad ogaatay sababta uu noo soo booqanayo ku-xigeenka ra-iisul wasaarahana maxay tahay? taliyihii ayaa markaasi wuxuu ku jawaabay, waxaa la isoo gaarsiiyey macluumaadka ku saabsan xilliga uuna soo booqanayo. wax tafaasiil kale ahna la ima siinin, balse waxay ila tahay inaan ogahay sababta uu halkaan u imaanayo. markaas ayaa daariq wuxuu weydiiyey su-aal kale oo ahayd, maxay tahay sababta? taliyihii ayaa ku jawaabay, dabcan inuuna eedeeyo shaqo xumana nagu tuhmo ayuu keliya noo soo aaday, waxaana uuna dareensiinayaa annaga inaan nahay kuwo fashilmay howsheennana aan qabsan weynay iyada oo weliba dhammaan awoodda dowladda gacanteeniina loo soo geliyey. sidaas ayaan ka baqanayaa ayuu yidhi taliyihii. markii taliyihii sidaasi uu yidhi kadib waxaa hadalka kusoo laabtay daariq oo wuxuu yidhi, taasi ilama aha sababta uu imaanayo, waayo eedda iyo canaanta maalin walba ayay nagu dhacdaa oo qadka telefoonka ayaana looga soo xiriiriyaa, balse ilama ahan in ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha ay usoo direen si eedeen oo keliya dusha uu nooga tuuro, balse waxay ila tahay arrin kale inay jirto. taliyihii ayaa markaasi kadib u jawaabay daariq oo wuxuu yidhi, kiiskaani baas aniga dhan ayuu neerfosaati iga dhigay, weligeyna mid ka mid ah horay ulama aanan kulmin, waayo kiiskaani waa mid gebi ahaantiisba halxiraalo ka samaysan, kaas oo aan awoodi waayay in aan kala furfuro. fikirkaygana waa uu ka wenyahay arrintan. waxaa intaasi iisii dheer cadaadiska xoogan ee aan kala kulmaya xukuumadda, boqortooyada, warbaahinta iyo shacabkaba. anigoo xaalka sidaasi iigu xun yahay ayaa haddana waxaa la iigu sii daray in burcadda BY3 ay qorsheynayso weerar qaraxyo ah kaasi oo dhowaan la filaya in iyaga ay fuliyaan. daariq ayaa markaasi kadib wuxuu ku fikiray inuu taliyaha u sheego in dilaaga macquul ay tahay inuu saldhigga uu ku sugan yahay, sidoo kalena xogtooda uu la socdo, balse wuxuu ka baqay in la weydiiyo sida xogtaani uu ku ogaaday iyo waddada uu maray, mana uusan haynin jawaab uu arrintaasi uu ka bixiyo oo ma uusan awoodin. sixirka madow ayaan kaashaday. markaas ayaa inta uu iska aamusay kursigiisii uu ku fariistay. taliyihii ayaana markaasi kadib daariq usoo taagay dhowr warqadood isaga oo ku yidhi, bal fiiri, kani waa warbixintii ugu dambeysay ee ay diyaariyaan guutada, waa waraaqa hadal un uu ku qoran yahay balse aana wax macluumaad aan laga helaynin. daariq ayaa kadib markaasi hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi, waxaan yaqiinsaday in dilaagaasi mar un aan gacantan kusoo dhigi doono, hana ka welwelin arrintaas. taliyihii ayaa markaasi hadalkii kusoo laabtay oo wuxuu yidhi, fiicnaan lahaydaa haddii anigana yaqiintaasi oo kale aan qabi lahaa, balse waa mid aanan dhici karin. daqiiqada kadib waxaa u soo galay waardiyihii xafiiska oo u sheegaya inuu yimid ra-iisul wasaare ku-xigeenka. markaas ayaa kursigii ay ka kaceen, waxaana soo galay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii. gacmaha ayay u taageen iyaga oo doonaya inay salaamayaan, balse kama uusan qaadin salaanta. kursi meesha yaalay ayuuna isaga fadhiistay. intaasi kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa hadalka bilaabay isaga oo farta ku fiiqaya nin isaga la socday. waxa uuna uu yidhi, ninkani waa sirdoon lagu magacaabo Agent G, wuxuu ka tirsan yahay nidaamka sirdoonka boqortooyada. daariq iyo taliyihii ayaa markaasi kadib salaamay ninkii la baray, kadibna waa ay wada fadhiisteen afartoodii iyaga oo kuraas iska soo horjeesta ku kala fadhiistay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaana markaasi hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi, halkee ayuu marayaa kiiska baarista amiiradda? taliyihii ayaa markaasi hadalkii ku jawaabay oo wuxuu yidhi, annaga waxaan bixinaynaa juhdigeenna oo dhan si aan ku gaari lahayn dilaagaas inaan gacantaan usoo dhigno. ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo hadalka ku kala jaray intii halkaasi sheekada uu marsiinaya ayaa wuxuu yidhi, sheeka baraleydan aad akhrinayso saxaafadda meel u dhigo, aniga ha ii akhrin, waayo aniga su-aal markaan ku weydiiyo jawaab cad ayaan kaa doonayaa. sidaasi awgeed haatan ii sheeg, kiiska wax horumar ah ma ka gaarnay? taliyihii ayaa markaasi iska aamusay, balse daariq ayaa hadlay oo wuxuu yidhi, maya, weli wax horumara kama aanan gaarin. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ayaa markaasi kadib hadalkii kusoo laabtay oo waxa uu yidhi,
waan filaya sidan inay dhacayso. Haatan waxaan idinka doonayaa inaad si fiican aad ii dhagaysataan. Labadiinna waad ogtiin kiiskan inuu yahay mid gaar ah, sharafta boqortooyadan ay ku xiran tahay. Sidaasi aaweed haddii dhammaan laamaha amniga ay ku fashilmaan inay wax ka qabtaan arrintan, waxaan annaga oo dhan aan noqon doonaa mid ceeb naga soo gaarta. Shacabka ayaa nala yaabi doona. Dowladaha caalamkana way nagu jeesjeesi doonaan. Maalin dhoweed boqoradda waxaa la soo xiriirtay mid ka mid ah dowladaha aan deriska nahay oo u soo bandhigtay in kiiskan ay ka caawiyaan, una soo dirayaan rag qobarro dambi baarayaal ah oo dilaaga soo qabta. Ma idinla tahay labadiina inaad aamini kartaan bahdilka ay waqtigaasi boqoradda ay dareentay? Kiiskana sharafteenna ayuu dhulka la gelayaa. Kuwo wax matarayaal ahna wuu naga dhigay. Markii sidaasi uu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa hadalkii qaatay Daariq oo waxa uu yiri, annaga waan fahamsannahay waxa aad ka hadlayso, balse dadaal naguma yara. Wado walba ayaan u marnay sidii aan ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasi kadib hadalkii qaatay oo ku kala jaray Daariq oo wuxuu yiri, waan ogahay midaasi aniga. Halkan uma aanan imaanin dadaalkiina inaan idinkala hadlo. Aniga halkan waxaan u imid si aan idinkugu soo bandhigo xal sheekada oo dhan soo xiraya. Waayo sida muuqata baaristani aad wadaan meel ay na gaarsiinayso ma lahan. Natiijo kama dambaysana kama soo wadaan. Annagana ma doonayno in caalamka nagu jeesjeeso. Markii sidaasi ra'iisul wasaaraha uu yiri isaga oo xanaaqsan waxaa hadalkii qaatay taliyihii ciidanka guutada B6 waxaana uu ku yiri, maxaad kala jeedaa midaasi mudane? Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasi ujeedkiisii uu halkaan u yimid u sharaxay waxaana uu yiri, waan idin sharaxay sida xaalka uu xun yahay haatan. Balse ma malaysan kartaan sida xaalka uu noqon doono haddii amiiradda la dilo? Ma malaysan kartaan sida uu noqon doono xaalka boqoradda haddii arrintaasi ay dhacdo? Xaqiiq ahaan musiibo weyn ayay noqon doontaa. Qobarradana waxay noo sheegeen in musiibo caynkan oo kale ay macquul tahay in wax walba ay burburiso, sidoo kalena qalqal ay geliso amniga boqortooyada. Intaasi markii uu yiri kadib miiskii intuu gacantiisii ku garaacay ayuu haddana si carale wuxuu yiri, taasina waa midda aan marnaba aniga ogolaan doonin. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasi kadib u baaqay ninkii sirdoonka ahaa Agenda G, kaasoo isagana soo bixiyay dhowr waraaqadood oo ay ku jireen boorso isaga uu siday, waxaana u dhiibay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii isagoona u taagay dhankii Daariq iyo sidoo kale taliyihii guutada B6. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasina kadib hadalkii ku soo laabtay oo waxa uu yiri, ka hor intaanan hadalkayga dhammaynin waxaan idinka doonayaa labadiina inaad waraaqadan aad saxiixdaan. Taliyihii guutada B6 ayaa markaasi hadalkii qaatay oo wuxuu yiri, maxay yihiin warqadahan? Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa markaasi uu ugu jawaabay, waa heshiis dhigaya in aydan waxba ka sheegi kareynin, arrinkaana aadna ka hadli kareynin. Daariq ayaa markaasi wuxuu yiri, muxuu yahay waxaasi aanan kashifi karin oo aanan ka hadli karin? Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasi wuxuu u sii raaciyay, waxaan idiin sheegayaa. Ra'iisul wasaare ku-xigeenkii oo wejigiisa care ay ka soo muuqata ayaa mar kale gacantiisa miiska ku garaacay isaga oo leh, ma saxiixdaan warqadan? Marka hore warqadahan saxiixa, kadib ayaan wax walba aniga idiin sheegi doonaa. Daariq iyo taliyihii guutada B6 ayaa kadibna intay is eegeen waxay qabsadeen warqadihii waana ay saxiixeen, waxaana u dhiibeen Agenda G oo ahaa ninkii sirdoonka ee ra'iisul wasaare ku-xigeenka la socday. Kadibna ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa wuxuu yiri, waa hagaag, haatan waxaad ii sheegtaan xogta iyo macluumaadka aad ka taqaanaan Delta 3. Taliyihii ayaa markaasi waxa uu ku jawaabay, waa mashruuc sir ah kaasi ujeedkiisu yahay in shakhsiyaadka muhiimka ah loo diyaariyo dad bedeli kara muuqaal ahaan. Intaasi markii hadalkiisa uu marsiinayay taliyihii ayaa inta uu aamusay waxa uu ku yiri, ma waxaad idhihi rabtaa mashruucaas ayaan fulinaynaa? Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaa kadib wuxuu yiri, dabcan waa hawsha aan doonayo haatan inaan samayno. Daariq oo aan waxba ka fahmin arrintaas ayaa wuxuu yiri, maxay tahay? Waa maxay waxaad samayn rabtaan? Maxay tahay waxaad ka hadlaysaan? Muxuu yahay Delta 3? Taliyihii guutada B6 ayaa kadib Daariq u jawaabay oo wuxuu yiri, waxay doonayaan inay adeegsadaan gabar u eg amiiradda kadibna la iclaamiyo in amiiradda la soo badbaadiyay. Daariq oo markaasi arrinkaasi aamini la ayaa wuxuu yiri, yaa macquul ma ahan, suuragal ma ahan, midaasna ma aha midaan samayn karno. Taliyaha guutada B6 ayaa kadib hadalkii ku soo laabtay oo waxa uu ku yiri, arrinkani maxay boqoradda ka leedahay? Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ayaana u jawaabay oo waxa uu yiri, boqoradda waaba qofka qorshahan soo bandhigtay, waayo ayada waxay ogtahay waajibaadka saaran ka boqorad ahaan iyo xuquuqda uu wadankeeda uu ku leeyahay, sidaas awgeed ayayna waajibaadkeeda ay uga soo hormarisay wax walba. Intaasi markii hadalka uu marsiinayo waxaa mar kale su'aale ay ku soo dhasheen ninkii Daariq ah oo wuxuu yiri, marka muxuu noqon doonaa xalka amiiradda? Ma sidaas fudud ayaan uga samraynaa? Kadibna waxaa loogu jawaabay, maya, marnaba kama samrayna amiiradda. Sida uu haatan xaalka yahayba
waa sii wadi doonaa waxaan sii wadi doonaa dadaalka aan raadinteena aan ugu jirno waana in lasii laba jibaaraa. daariq ayaa kadib hadalkii kusoo laabtay oo wuxuu yidhi laakiin sidee midaasi suurtagal ay ku tahay, waayo waxaad iclaamisay in amiiraddii la helay, taasina dilaaga ayay dhabarjab ay ku tahay oo isku arkay haatan inuu guulaystay. waxaana macquula inuu falkan a samaysayna uu ka caroodo kadibna xanaaq dartiis amiiradda uu dilo, waayo ma jirta sabab uu usii haysto. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasi kadib wuxuu daariq ugu jawaabay sida khubarada ay qiyaaseen dilaaga marnaba inuusan dili doonin ayuu u sheegay amiiradda. daariq ayaa kadibna wuxuu yidhi haatan ma waxaad leedihiin nolosha amiiradda oo dhan waxaan ay noqonaysaa mid aan ku qamaarno annaga oo eegayna hadal ay sheegeen dad khubaro ah kuwaas oo hadalkooda sax noqon karo ama qalad uu noqon karo. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa mar kale markii sidaasi daariq uu yidhi wuxuu ugu jawaabay waayahee bal adiga xal kale keen, ma noo haysa xal kale? daariq ayaa kadib wuxuu ku jawaabay maya, xal kale ma hayo, balse taasi kama dhigna in xalka aad keentay adiga uu sax uu yahay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa kadib wuxuu yidhi oo yaa yidhi xalkaani waa sax? ma waxay kula tahay aniga inaan arrinkan aan ku faraxsanahay? maya, balse tani waa tallaabo quus ah oo aan u qaadayno si aan ugu yaraan aan u badbaadinno wixii aan ka badbaadin karno. balse ka waran haddii sawirka amiiradda oo meyd ah wargeysyada caalamka oo dhan lagu soo daawaco iyada oo dhimatay oo laamiga lasoo dhigay ubax gaduudana korka laga saaray, ma qiyaasi karaysaa sida xaalka boqortooyada uu noqon karo? ma sidaan horey kuugu sheegayba ma qiyaasi kartid arrintaas? daariq ayaa kadib wuxa uu yidhi adigana maxaa ku ogeysiyey in sawirka amiiradda oo meyd ah inuusan wargeysyada kasoo muuqan doonin kadib marka aan iclaamin amiiradda aan badbaadinay? ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo su-aashaasi ay ku adkaatay ayaa kadib wuxuu ku jawaabay arrinkan khubaradu way ka fikireen, waa arrin suurtagal ah, balse waxay dejiyeen qorshe lagula macaamili kara arrintaasi, waxba kama jiraana laga soo qaadi karayo. xitaa calaa kulli xaal ma jirto cid aaminayso sawiro laga been abuuran karo iyadoo amiiraddiina hortooda ay taagan tahay oo ay nooshahay islamarkaana ay la hadlayso. daariq ayaa markaasi kadib waxa uu ku jawaabay hadal adag oo wuxuu yidhi idhegaysa mudane, ninka dilaaga ah waa nin caqli badan, mana ka heli doono falka aad ku dhaqaaqi doontaan. haatan wuxuu u haystaa inuu guulaystay, balse in aad falkan aad ku dhaqaaqdaan guushiisana aad kaga dheeshaan falcelinteeda uu arrintaasi uu ka samayn doono mid cabsi ah ayay noqon doontaa. ma garanaya xaqiiq ahaan tallaabada dhabta ah ee uu qaadi doono, balse waan hubaa inuu arrintaasi uusan ka aamusi doonin. ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ay ku adkaatay inuu daariqu ka dhaadhiciyo hawsha socota ayaa kadib wuxuu ku yidhi arrintaani khubaradu way ka fikireen, qorshihii lagala hortegi lahaana waa lasii diyaariyey. oo khubaradu wax walba way ka fikireen miya? ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa yidhi haa, khubarada sheekada oo dhan dhinac kasta ayay ka eegeen, waxaanay u diyaariyeen qorshayaal tallaabo walba oo dilaaga uu qaado kaga jawaabayno ayadoo xal muhiim ahna loo hayo. daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi haddii sidaasi ay tahay maxay tahay waxa aad nooga baahan tahay? ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi doorkiina waa muhiim, waayo annaga inta saxaafadda aan hor istaagno ma dhahayno amiiraddii ayaa la helay ama way soo laabatay, balse adinka ayaa amiiradda heli doona, sidoo kalena dilaaga ayaad heli doontaan, maxkamadna ayaad saari doontaan, adinkoona amiiradda soo badbaadin doona. haddii aan warka kuu soo koobana hawsha oo dhan adinka ayaa qaban doona, sharafteedana heli doona. daariq ayaa markaasi kadib wuxuu yidhi haddii qorshaha uu fashilmo ragga madax furasho ahaan loo bixin doono eedana dusha laga saari doono yaa noqon doona? annaga ayaa noqon doona soo maahan? ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ay ku adag tahay inuu daariq ka dhaadhiciyo qorshihiisa ayaa mar kale hadalkii kusoo laabtay una jawaabay oo wuxuu yidhi maya, marnaba ma fashilmi doontaan qorshahani oo idil, kumana fashilmi doontaan isaga, waayo wax walba waa lasii diyaariyey, adinkana hawsha un qabsada. daariq ayaa kadib wuxuu yidhi ka waran haddii aan diidnay in hawshan aan qabanno? waxaa loogu jawaabay waan hubaa inaad arrinkaas aadan samayn doonin oo sidaas aad ka caqli badan tihiin, balse calaa ay kulli xaal haddii aad diidaan fulinta amarkan marnaba kama hadli doontaan sida aad haatanba waraaqadaha aad ku saxiixdeen, afkiinna ayaad qabsanaysaan, balse haddii midaasi aad u hoggaansami weysaan khiyaanadii weyneed ayaad ku dhacdeen, taasina natiijada labadiinaba waad ogtihiin waxay tahay jawaabteeda. annaga dad kale oo hawshaani fuliya ma weynayno, halkaasna waxaad ka fahmaysaan haddii aad diidaan iyo haddii aad yeeshaanba in qorshahan marnaba uusan hakan doonin oo uu sii socon doono, balse annaga waxaan door bidaynaa in aad labadiina nala shaqaysaan, hawshana aad fulisaan, waayo haatan kiiska idinka ayaa faraha kula jira, annagana waxaan doonaynaa in wax walba sidooda caadiga ah ay kusii socdaan si run loogu maleeyo arrintan. markii hadalkaasi uu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaa hadalkii qaatay taliyihii guutada B6 oo wuxuu yidhi
goorma ayaa doonaysaa inaad iclaamiso in amiiraddii la helay? ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa markaasi kadib wuxuu ku jawaabay, annagoo eegayna habka hawshae u socoto iyo xisaabaadka wakhtiga jariimooyinka kale, waxaan iclaamin doonaa amiiradda in la helo isbuuc kadib. haataana su-aashu waxay tahay, labadiinna ma nala jirtaan oo hawshaan ma qabsanaysaan, haa ama maya? halkaa ha inoo joogto qaybta xigtaa ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. anigoo marcadde ayaa idinla socodsiinaya. marcadde show ayaad ka daawanayseen. qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.